السلام عليكم. magacaygu waa Maxamed Xasan. halkan waxaan ku soo gudbiyaa dhiirigelino muxaadarooyin gaagaaban iyo wax walba oo aan u arko in ay anfacayaan bulshada ama muhiim u yihiin. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato kanaalka, fadlan taageer oo subscribe saar kanaalka rukumo, sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee u soo dhacaan muuqaaladeena. haddii aad horey noola joogtay waan kaaga mahadcelinayaa. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. walaalayaal, mawduuceena caaway waxa uu ku saabsan yahay duco. haddii aad akhrisato oo ku ducaysato, ilaahay uu kuu furayo faraj walba aad u baahan tahay, sidoo kale qalbiga uu kuu dejinayo, qalbiga ayaa kuu qaboobaya, waa aad dareemi doontaa isbeddelka insha allah muddo kooban. laakiin haddaba si ilaahay uu inoo ka aqbalo ducadeena aynu u noqono dad saalixiin ah, waxa aynu u baahannahay in layna ka helo saddexdaas shay oo sahlaya in ilaahay uu inoo ka aqbalo ducadeena. haddii aynaan saddexdaa qodob lahayn, xoogaa way adkaanaysaa in ducadeena la aqbalo, lianna ilaahay ba raallayna kama aha. saddexdaas qodob maxay kala yihiin? kow, waa in aad aamintaa in ilaahay oo keliya uu wax bixiyo, ilaahay oo keliya uu wax kasta awoodo, ilaahay oo keliya wax la weydiisto, aadan ilaahay cidna ku lifaaqin. waa qodobka koowaad, niyadaada taasay ku jirto. qodobka labaad waa inaad ka fogaataa macsida walaal. macsida nooc walba ay tahay way noocay badan tahay. macsida isha, tan gacanta, tan adinka, tan afka, tan galmada. sababtoo ah walaalayaal, macsida waxa ay keentaa cara ilaahay. haddii uu ilaahay noo caroodana way adkaanaysaa ilaahay inuu ducadeena ka aqbalo, lianna ilaahay raalli bayna kama aha. qodobka saddexaad waa in layna ka helaa, waa inaan noqono xalaal cun. iska ilaali xaaraanta, ha cunin xaaraanta. haddii aad xaaraanta hore u cuni jirtay, walaal iska jooji. maanta jooji, bilow xalaal inaa cuntid, ilaahay weydiiso xalaal, shaqayso sidoo kaleeto waad helaysaa risiq xalaal. haddaba inuu gudubno ducadeena caawa, waa duco aad iyo aad muhiim u ah. ducadan waa duco aniga waan tijaabiyey, waan ku ducaystay, muddo ayaan waday. qaabkii ugu ducaystay marka hore ducadan ku hormarayaa. ducada sida tan weeyo: xasbuna allah sayatiina allahu min fadlih inna ila allahi raaqibuun. 40 jeer ayaad ku celinaysaa, sida u akhrinaysaa marka aniga kuu sheegaya xilliyada aad akhrisanaysid, laakiin waa inaad ku celcelisaa mar walba 40 jeer. xasbuna allah sayatiina allahu min fadlih inna ila allahi raaqibuun. waa 40 jeer. goormaad akhrinaysaa marka ducadan? goormaa ku ducaysanaysaa? waxa aad ku ducaysanaysaa ducadatan salaad walba gadaasheed waad ku ducaysan kartaa. 40 goor inaad ku celisaa lagaa rabaa. sidoo kale waxaa xilliga ugu fiican, ugu fadliga badan ee ilaahay uu jecel yahay addoomihiisa inay wax weydiistaan waa xilliga salaatuleylka. waa sir. xilliga salaatuleylka waa saacad ka hor salaada subax. salaada fajarka saacad ka hor ayaad kacaysaa, waad daahirinaysaa, waad weesaysanaysaa, labada ragcad tukanaysaa. salaatuleylkaaga markaad dhamaysatid, sida ducadan ayaad akhrisanaysaa. ilaah idankiis walaal waad ku liibaanaysaa, waad helaysaa wax kastoo aad jeceshahay. ducadan akhriso, ka faa'iidayso walaal. aniga waan tijaabiyey, wixii niyaddeeda ku jirana waan helay, waxaan ilaahay weydiistay waan helay. ku bishaarayso walaal, ilaahay ha ku jeclaado sida aan kuula jeclaada khayrka aan kugu soo gudbiyo mar walba. ula jeclo walaalahaaga kaleeto, la wadaag, u sii sheergaray. ilaahay ha ka abaalmariyo. mahadsanid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.